السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دواada muuqaal cusub aan ka soo duubayno magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Masallaha oo ah mid kamid ah xaafadaha magaalada Hargeysa oo ugu horumarka iyo ilbaxnimada badan runtii waxa ka socda dhismayaal kala duwan kuwaas oo dhisanayaan dadka qurba joogta iyo wax weyn dadka deegaankuba insha Allah muuqaal aad qurux badan ayaan ka soo duubi doonaa oo taabanaya dhinacyo fara badan haday noqoto dhanka horumarka shaqooyinka ganacsiga ka jira iyo wax weeyaan dadyo aad u kala duwan oo isugu yimid magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Masallaha dhismayaal aad u qurux badan oo kala duwan bariyahan dambe ku soo kordhiyay ayaan insha Allah muuqaal qurux badan ka soo duubaynaa muuqaalkan hadii soo gaaro subscribe like share la sii wadaaga asxaabtaada sidoo kale waxa magaalada Hargeysa aad ugu soo kordhiyay oo bariyan dambe ay dawladdu ay ka wadeen wadooyin kala duwan kuwaas oo ay qaybteeda ka qaadatay xaafadda calaamada waxa kale oo jira ganacsiyo kala duwan oo ku soo kordhay haday noqoto hoteelo supermarketyo waaweyn iyo waxweyn dhismayaal aad u qurux badan waxweyn xaafaddan calaamada iyo Masallaha oo maanta joogno aan muuqaal ka sameyn doono insha Allah aad ku arki doontaan sida ay la socod wanaagsan goobo fara badan ayaan tusi doonaa na soo raac imika waxaan soo gaarnay mid kamid ah dhismayaasha dhaadheer ee magaalada Hargeysa laga wado waa dabaqan oo noqon doona mid kamid ah hoteelada 5 star-ka ee magaalada Hargeysa laga hirgeliyay waxa ku yaala airport-ka dhankiisa waqooyi wuxuu dhow yahay xaafadda calaamada ee Masallaha gaar ahaan Masallaha xisaabsan yahay halka waxaad ka arkaysaa fiyo aad u qurux badan ayaa kaaga muuqanaya hoteelkan markaad joogtid iyo hadii la furo wuxuu noqon doonaa mid kamid ah meelaha ugu jawga fiican isla markaana xooyan bilic fara badan iyo qurux fara badan magaalada kusoo siyaadinaya sidoo kale jawi aad iyo aad qurux badan aad ku qaadan karaysid ma sha Allah aad iyo aad buu fiican yahay walooyin kale la dhisayo oo wali aan la dhameystirin xagga hoose ayaan u dhaadhacay waxaan doonayaa dhinaca hoose ama waxa weeye wajahadiisa hore inaan ka soo wareego oo bal dhanka hore wajahadana aan ka tuso iminka hoteelka marka wajahada kaga soo wareegno qaabkan ayuu muuqdaa gabagaba ayuu iskaga dhow yahay dhir fara badan ayaa loo beeray laakiin haddana wali far kama qodna oo hawlo fara badan baa hadhay hoteelkan inuu dheer yahay marka laga yimaado wuxuu kale dheer yahay hoteelada kale wuxuu ku yaalaa meel fix sare ayuu ku yaalaa oo inta badan hoteelada aan ku walin magaaladu marka taas ayaa keenaysa in hoteelku uu muuqdo mid aad u dheer hoteelkan ama dhismahan ayaa magaalada afarta koone uu ka muuqdaa dhanka bariga marka laga soo gelayo dhanka galbeedka marka laga soo gelayo dhinac walba oo ka soo gasho oo ka muuqda ma sha Allah qurux inuu soo kordhin doonaa xawayaan jawi iyo hawo aad iyo aad qurux badan meesha ay leedahay anigu runtii aad waan u haystaa insha Allah dadka ugu horeeyay maadaama noqon doona marka hoteelka la furo kulana garanay dadka ku beegan yahay gudaha ma nagelin oo shaqo iyo hawlo fara badan baa ka socota marka waxba ma naajam gareyn waan iska dhaafnay Masallaha shafkiisiyo shaq madar dushiisiyo sheedii yanaasiyo shaq nur baalahiisiyo daawadayaal iminka halkan aan taaganahay waa Masalli weeyaan dhinacan dambe waxna xigta magaalada Hargeysa oo muuqaalkeedu si qurux badan ku muuqdo halka waxaan ka muuqataa xaafadda calaamada wax weyn kob iyo horumar fara badan saad muuqaalka ka arkaysan uu ka socdo iyo dhismayaal kala duwan iyo ganacsiyo fara badan oo maalmo maanta ka dambayso magaalada Hargeysa ku soo kordhiya runtii hadda muddo Hargeysa ka maqnaato oo aad ku soo noqoto wax cusub ayaad ugu soo laabanaysaa dhinacan waxay xiga xaafadii Masallaha iyo buuri Masallaha imkaan joogno oo dhismayaal aad iyo aad fara badan ay ka socdaan insha Allah aan mid aan idin dulgeyn doono halka waxa ka muuqda buuri Masallafiyo iyo barkii ayaa ka muuqda dhinacan xaafadii libaaxyada iyo October oo ka dambaysa ayaa ka muuqata runtii muuqaal aad qurux badan waad la yaabi doontaan ayaan insha Allah idin soo duubi doonaa sida ay la socod wanaagsan na soo raaca iyo daawadayaasha muuqaalkan maanta daawanaya si kaliya laabano salaamaya Ahmed oo adigana waa ku salaamaya indhaweed ismaynaan arkin
waayaha noloshaana sunnaha nolosha weeyaan in dadku ay kala mashquulaan oo aan qofka nolosha meel ku toorto in badan waxbaan wada duubi jirnay magaalada Hargeysa gaar ahaan waxbaan ka duubi jirnay laakiin waqtiga ay saamix waayay adigana waqtiga ku saamix waayay marka haddana inaan kala raacanay maanta ayaan fursad u helnay inaan magaalada Hargeysa oo in badan aynaan waxba ka duubin marba dadka qurbo-jooga iyo dadka customerskeenoo ah iyo dadka daawadayaasheenoo ah inaan update gareyno oo marba magaalada waxa ku soo kordha walaynu tusno haddii safarada dibadda aynu si raaci kari weynay fursad u helnay inaan magaalada Hargeysa oo in badan aynaan waxba ka duubin marba dadka qurbo-jooga iyo dadka customerskeenoo ah iyo dadka daawadayaasheenoo ah inaan update gareyno oo marba magaalada waxa ku soo kordha walaynu tusno allayna guurteeda shaqo safarada dibadda aynu si raaci kari weynay magaalada gudaheedaan ku dadaalnay inaan wax ka duubno insha Allah marba intaanu chance u helno magaalada Hargeysa oo ah magaalo nabadgelyo ah oo caasimadda waddankeena oo ah hooyada Somaliland ummado kala duwan ayaa imika isugu yimi maalinta ka dambeysana tallaabada iyo horumarka la qaadaya halka aad waxaan u hambaliyeynayaa maanta golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo iyagu wax la taaban karo ka qabtay dhinaca wadooyinka horumarka dhiraynta waxa aad iyo aad fara badan oo la taaban karo ka qabtay ayaan aad u hambaliyeynayaa ilaahay hadduu nabadgelyada inoo siyaadiyo oo waddankeenu maalmaha ka mid a inuu waddamada dhigeenna ee jaarkeenna inuu la tartamo insha Allah oo wax badan oo la taaban karo uu ka muuqdo ayaan rajaynayaa muuqaalka hadalka dheereymaayo muuqaalka ku soo dhawaada oo subscribe-ta like-ta iyo comment-iga saara aad iyo aad baad mahadsantihiin daawadayaal shibqii allaya iyo maygaagta shuban iyo mashallaha shafkiisiyo sheekh madar dushiisiyo sheedihi iyo naasiyo sheekh nurba lahisiyo shacabkii Hargeyso shan habeen cirkii miray daawadayaal iminka waxaan marayaa xaafadda Masallaha xaafadan waa rugsan waa mid kamid ah xaafadaha quruxda badan ee laga hirgeliyay guud ahaan xaafadda Masallaha xaafadani waxa dhistay shirkad la dhaho Capson waana version ama model isku wada noocooda dhisan oo aad iyo aad qurux badan halkan waxa ku yaala masaajidka weyn ee Sheekh Mustafa Ismaaciil Baasawna halkan la jaaro halkan ku yaala xaafadani maaha xaafad inta la dhiso la iibiyo maaha waa dad baa jiray soo weydiinayay maraan muuqaal ka duubay laakiin xaafadan marka hore shirkadu dadku intay magaranaysa ay xaafadaha ay iibsadaan oo lacagta ay bixiyaan marka hore dhulka lacagta ka bixiyaan ay shirkadu ay u dhistaa qaabka xaafadaha ay u dhistaa saan ku maqlay laakiin ma xaafada inta dadka soo weydiin doona ama comment ay soo weydiin doona ayaan doonayaa inaan soo sheego xaafadani ma xaafad imika la iibinayo ma wax xaafad la degan yahay guud ahaanba xaafadani waa mid kamid ah xaafadaha aadka quruxda badan ee soo jiitay magaalada Bilcahaan halkan waxa ka furan supermarket iyo meherado ayaa xaafadan ka furan xaafada wajahadeedina qaabkan ay eg tahay oo ilinka ama kadinka weyn ayaa laga geliyaa deer weyn baa dusha ka wareegsan haddana deerkii ayaa laami dusha laga sii wareejiyay laamiyo kalena gudaha ay maraan oo dadku gudaha ayay maalbaawartoodii waxooda ay la geliyaan xaafadan waxay leedahay dhammaan adeegyadii loogu talagalay magaalada in xaafado yeelato haddii noqoto dhammaan adeegyadii xaafado yeelan lahayd oo dhan gudaha ayay u yaalaan ilaa hotelkeedii ilaa goobii dabaasha dukaamadii meheradii sidoo kale waxaa jira xaafado kale oo iyaguna ay shirkadana dhisayso oo weli gacanta lagu hayo ayaa jira oo aan weli la dhammaystirin iyo kuwa iminka la bilaabayo oo deyrkoodii la sameeyey oo dhanka laamiga ka saaran ayaa iyaguna jira marka horta xaafadan daanaya shirkadda Capson ayuunbaa kolay baa ku shaqale iyaduna kala xiriir doonaan laakiin aan waxaan kaliya jeclaystay inaan muuqaalkooda guud idin tuso waxa kale oo jirta xaafad kale oo la dhaho Aragsan oo ku taala xaafadda Masallaha laga dhisay Grand Hadi area u dhow ama buurta kala jeexan laga dhisay oo iyaguna aad iyo aad qurux badan oo qaabkan oo kale shirkadda ay u dhistay
oo qaabkan oo kale ay shirkadu dhistay iyagana insha Allah waxaan sameyn doonaa haddii waqtigu uu chance-ku iyagana waxaan sameynayaa inaan muuqaalan aan kasoo duubo qaybta dambe insha Allah iyagana soo mari doonaa muuqaal kasoo duubi doonaa maadaama xaafadan soo duubay xaafada kale ama tanaa yihiin boorta kale jacayl laga dhisana insha Allah iyagana muuqaal baan ka sameyn doonaa sida ay la socod wanaagsan ma sha Allah waxa weeyaan waa wax qabad runtii wax weeyaan aan muuqda Somaliland brand waxay aad horumar uga sameysay dhanka dhismayaasha quruxda badan dabaqyada dhaadheer gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo wax weeyaan dhanka tiknoolajiyadana waxaan oran karnaa Somaliland waxa ku jirta wadamada horumarka ka gaaray ee wax weeyaan adduunku aad uma jirto uma aragtaan sida wax weeyaan indhihiina idin macallina runtii wax weeyaan waa horumar baaxad leh oo soo kordhay waliba xaafadahan aanay dadka danyartaa ama jeebkoodu aanu fiicnayn waxa loogu talagalay xaafadahan waxa loogu talagalay dadka iskaladan ee wax weeyaan lacagta haysta inay digi karaan ayaa loogu talagalay marka wax weeyaan dadku wax weeyaan wax isugu jiraan xaafado wax isugu jiraan sidoo qaar ay ku noolaan karaan dadka dabaqada hoose dabaqada sare iyo dabaqada dhexe inta boo laga heliya marka wax weeyaan nin walba wax weeyaan jeebkiisa ayuunba wax weeyaan ayuu la jaan qaadaya ma sha Allah wax weeyaan laamiyo fara badan ayaa xaafadan sidoo kale ay laga sameeyay oo wax weeyaan loogu talagalay in xaafada quruxdeeda iyo bilicdeeda wax fara badan ay ka bedesho la socod wanaagsan iminkana waxaan doonayaa inaan muuqaal kale aan ka soo duubo xaafada kale xaafadan dhigeeda ah ee la dhaho Aragsan ee ku taala boorta kala jeexan ama controlka hore sida la socod wanaagsan alla shacabkii Hargeyso shan habeen cirkiyaa kimiray dirta shaqal madoowi shaadir lagu hagoogo galay waxba gudbahalay ayay jirtaa laga soo saaro laba dal caalamka Somaliland oo gobolada aan ibadane u bixi shinkiisi dhamaado dirta shaqal madoowiyo shaadir lagu hagoogo digrigi shareero شنح ديركي قالوا شيغانيسو شعني إبادن وبحي شنكيس دمادو بالامباليس شرح ليو شني ملاب سمايسيو بديه وشيغيا بالامباليس شرح ليو دشني ملاب سمايسيو بديه وشيغيا فروقة كم من سنة يا حد من كاك هذا وياه saaxiibayaal soo dhawaada hadda waxaan ku suganahay gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan hoteelka Mega Plaza waxaanu ka nimi xaafada Aragsan ee Masallaa waxaanu soo duubnay muuqaal aad iyo aad ku raali gelin doona imika waxaan fadhinaa Mega Plaza halkan ayaanu kafe kaga yaro dhufan doona haddii Ilaahay ka dhigo waxaan tagi doonaa xaafad kale oo cusub oo ku taalo buurta kala jeexan oo leeyahay Rugsan waa xaafad aad iyo aad u ballaaran isla markaana gebi ahaanba wax fiila iyo wax bangala ah aan ka dhisnayn wada dabaq meedhan
markaanu halkan kafeega kaga dhufano waxaan tegi doonaa xaafadda rugsan oo ku taalo buurta kala jeexan islamarkaana xaafad aada iyo aad u qurux badan haddii ilaahay ka dhigo muuqaal qurux badan baad halkan kala socon doontaan idinkuna muuqaalku markiini soo gaadho subscribe-ta like-ta commentiga iyo share-ta dee noo badiya inaan ku wada hadlin wad markan ka siiya indhaha waa ka duulaa mana waasho mana wareero naxariisna waa kala wareegna saaxiibayaal muuqaalkan adalkiisa waa magaalada hargeysa mar kastaba halkan cidla maaha jaam weeyaan maanta waa maalin jimca oo dadku ay kala hurdaan waxaan maraya eeriya shacabka wasaaradda arrimaha gudaha horteedaan maraya adikaarkiya wadooyinka magaalada hargeysa casharooyinkeeda شبيرها عيدودي مع شكديسي شامرر كدليا او يا شرفكو اذا ليدا الجيساي شبيرها عيدودي راح شكديسي شامرر كدليا يا شرفتي اذا ليدا سيدي جاي شعبكي وكوري وشرحان شال ماذا حريريو شالقو همسيو شلكيني مذلو iminka waxaan maraynaa xaafadda jigjigeer baan maraynaa sida xaafadda ka aragtan waxaa ka socda dhismayaal qurux badan oo casriya moolal waaweyn sidoo kale waxaa ka socda hoteelo aada iyo aad bay la jaan qaadaysaa magaalooyinka kale ee dhigeeda horumar weyn ayaa ka socda maasha allah waxaan wax kale maaha waa isku tiirsanaanta midnimada iyo wax wada qabsiga shacabka somalilan hooyaan waxaad iyo aad loogu farxo weeyaan sida ay la socod wanaagsan waxaan kaloo aan ilaa iyo socon doonaa ilaa iyo buurta kala jeexan ilaa garan haadi ilaa iyo waxa weeyaan kantaroolka ayaan socon doonaa muuqaal qurux badan ayaan insha allah idinka soo sameyn doonaa sida ay la socod wanaagsan muuqaalkayga intuu kusoo gaadho subscribe like share na dhiirigeliya janaalkan ayaan inta badan isku soo gudbinaa waxa weeyaan janaalkayga hore aan isku soo gudbin jirnay xogaa caqabad ayaa naga qabsatay laakiin kan ayaan insha allah u badnaan doonaa asxaabteyda xaggaa naga xidhnana insha allah waxaan rajeynaa halkan soo wareegaan oo halkan ay nagala socdaan sida ay la socod wanaagsan سيدي جاي شعبكيو كوري شرحانيو شال ماذا حريريو شالقو همسيو شلكيني مذهبو شرابادو جوكتو شامبينا إيسا صوتكو شيش ديقل ليا شرابادو جوكتو شامبينا إيسا صوتكو شيش ديقل ليا شرفكو ذا ليدا هاي عرقيسا شرفكو ذا ليدا هاي عرقيسا شرفكو ذا ليدا هاي عرقيسا iminka waxaan soo gaadhnay xaafadda ragsan waa mid ka mid a xaafadaha ugu quruxda badan magaalada hargeysa oo ku taalla ereyada kantaroolka ayaan doonayaa inaan muuqaal yaro kooban aan idinka duubno runtii aada bay qurux badan tahay soo jiidasho fara badanna way leedahay haddaba halkani waa meel kale oo iyaduna fiigeedu aada qurux badan yahay shirabadu joogto shambinaysa socodku shisdegalaleya shirabadu joogto shambinaysa socodku shisdegalaleya sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay dunida soo muusad dadka qaar
shambinaysa socodku shistega la leeyahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay. halkan aan joognaa waa xaafadda kontaroolka ama ereyada u dhow hoteelka weyn ee caanka ah ee Grand Hadi. waa meel dhulka ka sareysa oo joogeedu sareeyo oo hawo macaan ay ka dhacayso, isla markaana dhismeel aad u qurux badan laga dhisay. dhawaan bay magaalada soo gaadhay. waa meel aan odhan karno waxay leedahay cimilo u dhigata cimilada masallaha oo kale, isla markaana waxaa laga dhisay dhismayaal qurux badan iyo waxaweyaan guryo filooyina oo si aad u qurux badan loo nashqadeeyey. daawasho wanaagsan, ka bogo daawashada dhulkaaga hooyo. shirabaad u joogto shambinaysa socodku shistega la leeyahay shirabaad u joogto shambinaysa socodku shistega la leeyahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay sharafkooda leedahay arkaysa. daawadayaal muuqaalkan ka soo dubaynay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Boqol Jire iyo xaafadda Masallaha oo laga dhisay dhismayaal aad u qurux badan laga hirgeliyay iyo wadooyin waaweyn oo wax weeyaan bilicda magaalada iyo muuqaalka magaalada wax fara badan ka bedelaya. waanu jeclaanay inaan muuqaalkan la soo wadaagno. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa. waa tan iyo muuqaal dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.